wasiirka wasaaradda jidadka iyo wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta kormeer ku soo maray deegaanka Waridaad ee gobolka Saraar oo ah meelaha ay wadadu ka socoto isagoona wasiirku kormeeray qaabka ay shaqaaluhu u wadaan shaqada qaran ee wadada. barnaamijkan oo ah feeskii labaad ee wada 40 kiiloomitir waxa uu ku ekaa 28 August waxaanu bilownay 28 August wixii ka dambeeyay 40 dambe oo imika aynu ku jirno 3 September waxaan noo qabsoomay feeska labaad 2 kiiloomitir oo daamira iyo 4 kiiloomitir oo ah final ruuxantii waxa weeyaan waa waxqabad aad loogu farxo waa waxqabad ay ku suntan tahay taariikhda qaranka waa mashruucii ugu ballaarnaa Soomaaliland ruuxantii mid kale waxa noo farxada anagoo ah dhalinyar waliba mas'uulka ah injineerka guud ee mashruuca Ceergaawo Burco hogaaminayna dhalinyar aan isku wada facnahay waa mid aan aad ugu faraxsanahay in noo la dhiibo mashruucan isaga imika wajiga labaad baynu wadnaa waxaan rajaynayaa insha Allah wajiga labaad 40 kiiloomitir iyo 4 bilood ay noo hadhay insha Allah haddii la ka dhigo inuu Ilaahay nagu guuleyn doono waxaan ku kalsoonahay teamkan meesha jooga shaqadooda iyo xilkasnimadoodana aad iyo aad baan ugu kalsoonahay alxamdulillah runtii wallahi aad baan ugu faraxsanahay iyadoo duruufo badan jiraan anaguna itaalkayga waanu idin lan qaadar waxa la qaban karno ama ha noqoto promotion ama ha noqoto ma garanaysaa ka warhayn ugu dambeyntiina waxay soo gaareen wasiirka iyo waftigiisu degmada Ceerafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag oo ay wadada u dhaaftay dhinaca galbeedka si diiran ugu soo dhaweeyay shaqaalaha wadada maamulka gobolka Sanaag maamulka degmada Ceerafweyn iyo shaqaalaha ka shaqeynaya wadadaasi ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maayor ku-xigeenka mashruuca wadadaasi madaxii mashruucan Ceergaawo waxaan ka ugu mahadnaqayaa oo qaranka u sheegay madadka deegaanka in wasiirka Cabdilaahi uu naftana dul dhigay aanu mar telefoonka naga dhigin uu nagu monitor gareeyo mashruucan mahad weyn baan ka sheeganaynaa waa maqasheeno mujaahidiinta inta badan waa idinka maqlay annagu mujaahidiin baanu leenahay mujaahid Xuseen oo injineerka mujaahid Buraale mujaahid Cabdikariin annaga mujaahidiinteeda dhabta ahay waa kuwan weeyaan waxaan islaahay mala tadliiq ku dhaweeyay mujaahidiinta oo ragga waqtiga halka taagan gobolada barigu sadkii ugu weynaa ay haystaan oo wadada Ceergaawo بليان اسمه كبحة أرنت هلا وجادو عشورة الجميلة لقى صقرا برتن لقوا بحيا تبور ما لقوا بحيا تبربرة لقوا بحيا تلاس عروض با لقوا بحيا تبرع لقوا بحيا تسناق با لقوا بحيا شغلة هاي مقابلني شغلة يرماها رنتي ما أنت راح نشوفنا قلبيت كمقالة الدقمة العلفوين وحن هل كان نشوفنا وحيوضد الساكة كسعة إنه شرتا إلى 4 كيلومتر وتوقع قرعيلة أفقيسة maalba meel bay joogtaa maanta waxa u jeedaa dhinaca galbeedka degmada Ceelafweyn ku madaxa shaqaalaha nahay shaqaalihii qayb waxaan ku soo maray meesha la yiraahdo Waridaad saaka waad soo aragtay qaybtii ugu ballaarneedna waa qaybta Ceelafweyn qoladii gaadiidka ee darawaliinta ku hor joogta lagu faanaay wadada dhigay ee kabahooda iyo cagahooda iyo indhahooda ka muuqata joognaa wadadii laga dhisayay Ceergaawo ilaa Burco waxa na soo gaaray oo imika halkan aan ku soo dhaweynaynaa wasiirkii wasaaradda wadooyinka Cabdilaahi wasiir de anagu nabadgelyo aanu joognaa nabadgelyaduna imika gobolka aad bay noogu fiican tahay alxamdulillah ku soo dhawow wasiir waa ku soo dhaweynaynaa anagoo ah madaxdii gobolka Sanaag bara saabka oo horkacayo halkan hawl badan baa laga qabtay dadka reer Sanaagna aad iyo aad bay u dadaalayaan adiguna wixii waajibaadkaaga ay qaranku ku yimid waad ka shaqaynaysaa Allah ya khaliq ilaahu ku barakeeyo in aad loogu dhug yeesho shaqaalaha jooga wadadan amba xaquna ha noqoto ama xaq raashin ha noqoto ama xaq dhaqaalaha ha noqoto in nimbari loorin jiray burcad joogay ayay nin DCS yar qabteen ninkii uu dabadnoo gabiyo rasuul mar haduu DC igu xillihi igaga xayn daabtay baloori xadiyaha haduu xireysi yaaba xaqiiq weeyo meel kale iga xanaanaynay marka waxaan ku leenahay wasiir shaqaalaha halkan jooga madax iyo mijaba si gaar ah loo xanaaneeyo qardaarankagu inta wixii hoos aynu soo raynaa way ku amaaniin ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda jidadka iyo wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland imika waxaan ku soconnaa insha Allah talagalkeenu sidoo yahay 2019 dabeeqadii inaynu itaalka isku geeyno wadadaas inaynu mashruuca soo gabagabayno inaga time frame kan oo samaysan doono insha Allah haddii la ka dhigo wixii naga gaafaa bil amba 2 bilood oo contingency
aynu ku talageli doonaa madaxweynuhuna wuxuu ballan qaaday mashruucan inuu sanad iyo badh ku dhammaado madaxweynuhuna waa u diyaar madaxweynuhuna ilgaaru ku hayaa sidaanu idinla xisaabtamayna ayaanu loola xisaabtamaa inkana maanta aanu idin dhaliili maayo maanta waan idiin mahadnaqay runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ima muuqato wax dhaliilo waad leedihiin waxaan sidaa milestone-ka aynu ku talagalnay waynu ka fargaraynay maanta milestone-ka aynu ku talagalnay waynu ka fargaraynay Ahmed Mursal Askar Star TV